السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتها هاد إسلامية channel kana daawanaysa على أول عابي channel waxaan maanta halkii kasii wadayna course-keeni Linux CentOS Red Hat waxaan hore u soo barnay sida directory loo sameeyo sida file loo sameeyo sida file loo sameeyo sida user loo sameeyo sida loo sameeyo folder sida loo sameeyo folder loo delete gareeyo groups baan soo barnay waxaan maanta isla eegaynaa permission marka hore laba la siiyaa permission horta waa laba marka koowaad waa absolute permission iyo symbolic labadaas uu noqdaa aynu eegno horta marka hore labada folder waxa la siiyaa marka hore permission ka folder iyo file folder ka imika la dhaho folder ka cawi la dhaho aynu eegno waxa la siiyay ls minus ld folder ka magaciisa markaan ogaanayno awoodu leeyahay waa full permission adariska iyo userku iyo groupskuba waa full permission marka inuu folder yahay waxaan ku qoraynaa ddaasaan ku qoraynaa folder d baa ugu horeysa file kana ls minus ld iyo file ka magaciisa marka file one-kaas aniga ii samaysan file one-ka waxaan eegaynaa awood haysto wixii file minus-kaas ugu horeeyay wuxuu haystaan usersku waxa haystaan write iyo read waa haystaan kaasina intaas oo haystaan groupskuna otheriskuna intaas read oo kula haystaan marka awoodaha labadaas aan ku tijaabinaynaa waxaanu kala siinaynaa marka userska r baan siinaynaa read qura groupskana read iyo execute baan siinaynaa otheriskana waxaan siinaynaa execute kaliya marka maxaynu odhanaynaa gmode baynu odhanaynaa 431 iyo file 1 iyo fileka magaciisa enter baynu leenahay ls minus ld iyo file 1 markaynu soo sarayno awoodu qaatay iyo file 1 enter waka read oo qura haystaan userku groupskuna waxa haystaan read iyo execute otheriskuna waxa haystaan execute qura full permission hadda markaan siiyano maxaan odhanaynaa gmode 777 iyo file 1 enter baynu leenahay waxaan odhanaynaa ls minus ld iyo fileka magaciisa full permission imika waka full permission buu haystaa folderkana aynu eegno ls minus ld iyo folderka magaciisa isna folderkuna wuxuu haystaa imika wuxuu haystaa full permission marka full permission buu haystaa imika folderkaasi waxaan u baahanahay in otheriska qura siiyo read maxaa odhanayaa gmode otherisku oo waxaan siinayaa read qura iyo folderka magaciisa ls minus ld iyo folderka magaciisa markaan gaargaar u siinayo weeyaan wax way ka khaldan baan ku daray waxaan doonayaa imika maxay haystaan otheriskuna user groupskuna waxa haystaan read iyo write iyo execute otheriskuna waxa haystaan write qura waka write qura ay haystaan waan gartay clear gade ls waan gartay daba maxay haystaan ls minus ld filekaas muxuu haystaa file 1 kaasi
inta soo haystaa ls minus ld folderkuna waxaa haysto marka labada permissionka labada siyaabada permissionka loo siiyaba weyn kala ogaanayna waxaan odhanaynaa folderkaasaan imika markaa ku horeynaya waxaan odhanayaa gmode useriska waxaad siisaa right oo qura soo sii coma groupiskana waxaad siisaa read oo qura kuwaas haystaan soo ma kuwaas read oo qura ay haystaan groupiskana waxaan siinayaa right baan siinayaa otheriskana waxaan siinayaa read iyo right iyo execute iyo folderka magaciisa ls in awoodii qaatay inuu eegno ls minus ld iyo folderka magaciisa ka useriska maxaan siinay read oo qura marka dhiidan waxa weeyaan waa folder waa directory way noo sheegaya groupiska maxaan siinay right oo qura waqta otheriska maxaan siinay full permission habkaana waa loo siiyaa marka haddaan full permission ka dhigayno maxaynu odhanaynaa gmode 37 iyo folderka magaciisa ls minus ld iyo folderka magaciisa full permission otheriski iyo groupiski iyo useriski full permission bay haystaa full permission ayay haystaa iminka kale permissionkana markaas saasaa loo siiyaa marka iminka folderka aan ku ridayo muusiga koobiga ama moveka waxaan odhanayaa cb minus r folderka waa cawil /home userkan ku jiro ah caynaashe iyo halka la geynayo ah muusiga waxbaa khaldan cb minus r folderkan qaadayo /home userkan ku jiro cawil halkee dhigayaa buu yidhi halkaan ku geeyaa muusiga igey markaa muusiga wayna ka helaa toos buu qaatay iminka cd muusigayna gey muusiga waan ku jirnaa waxaan ka ogaanayna bwd xagaan ku jirnaa muusig muusig wayna ku jirnaa maxaa kugu jira haddaba muusiga ls wayna fileka folderka ka helaa folderka iminka soo siinay ee aynu kasoo dhignay koobiga haye dib inooga saar cd minus bwd xaggaan joogaa caynaashan joogaa homegaan joogaa move haddaba markaynu odhanayno move file oneka aynu move garayno xaggaan ku geeyo homekaygee userkan ku jiro xaggee la geenayaa muusiga haddaba muusigan kaana ku move garayno cannot ayuu diiday moveka file 1 xaggee geenayaa homeka gee userkan ku jiro caynaashe halkee geenayaa move fileka magaciisa halka la dhigayo moveka wuu diidan yahay ls file baan ii samaysnayn borota file 3 ka dhig intaa ku qor dd intaas hayga soo muuqato ii save gare waa ku daraynaa moveka insha allah
حولنا خلطة مايان terminalkii baa inoo soo baxaya inoo soo baxay terminalkii yara culays baa jira waxaan rabnaa ls ka move file 1 xagee la geenaya homeka userkan ku jiro xagee geeya folderka xawil kursi وجديه وجديه دمله كوبيجي بعدين حينو دلوقتي ما جرت كلير ls cat file 4 file 3 وخاصة مساج file 3 كياله وكان ياله والله دقيقة وياله good sidaan ka doonayo kuma jira marka file 3 maarta u yaala haddaba waa inaynu ka helaa muusiga aynu dhignay waa inaynu failka ka helaa duu noo move gareeyo sax yahay cd muusiga xageen joognaa muusiga labadii inaynu folderkii ka helaa iyo failka file 3 waka markii hore uu move gareeyay anigan eegina ku degdegin kana waa folderkii marka sidaas move kana loo siiyaa santioska cashirkeena inta soo koobi Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta aad baan salaamayaa channelka lagu xidhnaado share iyo like iyo comment iyo subscribe iyo naga ilaaw insha Allah. Assalaamu calaykum.